السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشين شرفت له كحرن جنال كينا سودواada walaalayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo maalin wanaagsan ramadaan mubaarak ramadaankii waa noogu gabagabo alla subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa fadliga bisha ramadaan inuu noogu dambi dhaafo waa 10kii dambe waxaan alla subxaanahu wa tacaala ka baryeynaa inuu haleeshiyo habeenka laylatul qadriga biidnillaah waalidiintiina soo barbaariyay ee inta nala soo ekeysiiyay ee juhdigooda nagu soo bixiyeen alla subxaanahu wa tacaala waxaan ooga baryayaa in uu ku casuumo jannatul firdaws haddaba walaalaha quruxda badan aan ka faa'iideysano oo isxasuusino saliga xabiibkeena Muhammad اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد soo dhawaada walaalayaal waxaan doonayaa maanta in aan idin la wadaago qiso cajiib ah run ahaantii oo aad ka bogan doontaan taasoo ku saabsan faa'iidada ay leedahay saliga ibraahimiyada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka loo aqriyo siiqatul ibraahimiya oo ah qaabkan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مركي قاب كان أما صيغة لو أخريو قبر سبحان الله aad la yaabi doontaan qisadeeda ayaan idin la wadaagi doonaa insha Allah gabadhan qisadeeda waxay ku bilaabaysaa gabadhan waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan oo Alle subxaanahu wa tacaala uu siiyay haybad iyo qurux waxaa kaloo jirtay gabadhan in ay ka dhalatay qoys ladan oo maasha Allah hanti iyo dhaqaale haystaan gabadhan hal arin ayaa asiibtay taasoo ah in ay lahayd asxaab gabdha ah oo aan wanaagsanayn in ay gabadhan yeelatay asxaabtii ayaa gabadhan baray in ay wareegto in ay meel kasta aado xitaa waxay geliyeen deymo aad iyo aad u fara badan siday u lahaayeen maalin sheegana soo baxay kan qaado yacni waxay geliyeen deymo oo aysan waalidkeed ka warhayn deymo aad u fara badan ayay geliyeen gabadhan waa iska faraxsan tahay waa iska qoslaysaa gabdhahan familkooda iyo dadkooda ay wax ka soo qaataan dadkooda ay wax u sheegtaan laakiin gabadhan familkeeda waxba ma ogo dad hanti iyo lacag leh ayay ka dhalatay laakiin haddii waxyaalahaas lagu maqlo waxay ka baqaysaa in guriga lagu reebo ama guriga lagu celiyo saas darteed wixii asxaabta soo qaataanba waa Kenya waa iska dhiibaya deen bay ku soo qaadaa gabadhan deen aad u fara badan ayaa lagu yeeshtay waxaa dhacday in muddo markii ay joogtay in gabdhihii asxaabteeda ahaa mid la soo doonay mid la guursaday mid kale la guursaday ayaday meesha ay ku soo hartay oo calafkeedii nasiibkeeda ma helin sidii ay u joogtay waxay gaartay 35 sano waa iska faraxsan tahay gabdhaha aan asaageed ahayn ee dhalinyarada ah ay wali daba socotaa oo meelihii ay iska soo socotaa deymanka lagu leeyahay maalin kasta waa loo qabsadaayo marmarsiyo un bay kaga baxdaa gabadhii maalin ayaa waxay isweydiisay adiga waxaa tahay qof weyn oo da'daada wad ka warhaysaa waxaa jirtaa 35 sano gabdhihii kula ekaa iyo kuwii ka yareeraa dhan mar hore ayaa la guursaday adiga intaasoo deyn ayaa lagugu leeyahay waalidkaa kama warhaya maanta bal haddaad dhimatid ka waran waxay kala istiri dadka adiga maanta kula eg waxay haystaan dhaxal oo yacni intay shaqaysteen ee xoolo laga dhaxal haystaan Alle subxaanahu wa tacaala kuwuu siiyeyna owlaad ayay haystaan adiga maxaad ku qanacsan tahay oo aad ku faraxsan tahay gabadha intee meel kaligeed fadhiisatay ayay isla hadashay oo fikirtay oo nafteeda si reality ah ama xaqiiqo ah oo la hadashay waxa u soo baxday gabadhan meel cidla ah in ay taagan tahay waxa ay go'aansatay in ay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam bilowdo
oo alle subxaanahu watacaala isku xirto oo asxaabtan iyo gabdhahan iyo dadkan ay ka harto inuu alle subxaanahu watacaala diintan u fududeeyo nolol wanaagsanna siiyo. gabadhan waxa ay bilowday saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam inay akhriso gaar ahaan qaabka ama siiqada ibraahimiya oo ah qaabka aan soo sheegay. subxaanallah, 2 isbuuc gabadhan markay saliga nabiga afka ka qaadi jirin oo maalintii 5,000 6,000 ay akhrin jirtay ayaa waxaa dhacday 2 isbuuc markii ay u buuxsantay in ay hooyadeed u imaatay oo ay tiri waxaan soo maqlay in adiga deen lagu leeyahay, maxaa ka jira arrintaas? hooyadeed ayaa u imaatay oo arrintaas weydiisay. waxay tiri inta iska oys ayay waxay tiri hooyo arrinkaas waa run, intaasoo deen ayaa lagu leeyahay, gabdho saaxiibo ah ayaa sidaas ii galay. hooyadeed ayaa waxay idil u sheegtay. 2 isbuuc markii joogtay hooyadeed ayaa tiri aniga maxaa iigu sheegi weysay, aniga soo kuma dhalin, aniga maxaad iiga baqaysaa? wixii idil hooyadeed ayaa ka bixisay ayadoo lagu qaylinin, ayadoo la canaananin, maadaama ay familkan awalba ahaayeen dad lacag leh, laakiin ayadaa reerkeeda iyo walaalaheeda awalba ka dhuuman jirtay gabadhan. marka sidaas ayay gabadhan deemihii oo idil hooyadeed uga bixisay ayadoo ku faraxsan, ayna u ducaynaysa inuu alle subxaanahu watacaala nolol iyo mustaqbal wanaagsan siiyo. 2 isbuuc kadib hooyadeed ayaa diinta ka bixisay. gabadhan way sii waday saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam ay u akhrin jirtay qaabkii ibraahimiyada. isbuucii 3aad markii la gaaray ayaa waxaa dhacday in uu la soo xiriiray wiil ay isgaranayeen oo daris ay ahaayeen oo waliba si fiican ay isku yaqaanaan iyada iyo waalidkeedba iyo wiilkan da ahaan waxa uu ka yaraa 3 sano. waa uu la soo xiriiray, waxa uu sheegay in uu rabo in ay wada sheekaystaan oo isfahmaan, dan waalidka ay barto oo isguursadaan. uuna u sheegay inuu wanaag iyo guur oo kaliya doonayo uuna yahay wiil daacad ah. wiilka maadaama ay isku xaafad ahaayeen oo isku xaafad deganaayeen, gabadha way garanaysay. wuxuu ahaa qof diin ahaan iyo dhaqan ahaanba aada u wanaagsan, sidoo kalena wuxuu kasoo jeeday famil dhaqaale ahaan wanaagsan oo dhaqaale haysto. waa wiil da ahaan ayadii 3 sano ka yar oo dhaqaale haysto oo diin iyo akhlaaqna leh, maadaama ay iyadu kasoo jeeday famil dhaqaale haysto oo wanaagsan. waxaa dhacday gabadhan wiilkii inay soo dhaweysay, ay wada hadleen. markay muddo kooban wada hadleen waalidkeed ayay bartay, sidaas ay wiilkii kusoo doontay, waa la siiyey. nolosheedii oo idil ayuu alle subxaanahu watacaala ku bedelay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. hal maalin unbay meel fadhiisatay oo go-aansatay in ay alle subxaanahu watacaala dhankiisa aado. marmarka qaar way wanaagsan tahay qofka intuu keligiis meel fadhiisto inuu wada hadlo, uu dhaho maxaa iga qaldan, maxaa iga saxan, uu qofka bal si isku mashquulo oo dib isku fiiriyo. gabadhan alle subxaanahu watacaala nolosheedii 3 isbuuc markii ay waday saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuu faraj albaabka uga soo gargaraacay. 2 isbuuc markii ay waday ayuu alle subxaanahu watacaala deymihii ka guday. isbuucii 3aad markii ay wadan alle subxaanahu watacaala faraj guur oo kasoo daahay oo 35 sano ay gaartay ayuu alle subxaanahu watacaala u soo dedejiyey. haddaba waan filayaa walaalaha quruxda badan qisadan cajiibka ah walaalo badan inay ka faa'iideysan doonaan. laga yaabay dad badan oo maanta nolosha ka quustay, dad badan oo deymo lagu leeyahay, dad badan oo isleh saacadan xilligii guurka waa dhaaftay oo alle subxaanahu watacaala ka rajo dhigay. marnaba ha ka rajo dhigin alle subxaanahu watacaala, raxmadiisana yaan laga quusanin. walaalaha quruxda badan qisadeena maanta halka ayay ugu egtahay. fadlan ha ka iloobin muuqaalka inaad laag saarto. haddii aad horey noola joogto waad mahadsan tahay. haddii aad nagu cusub tahayna kusoo dhawo janalkeena oo kusoo biir gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawado muuqaaladeena xiga. waa mahadsantihiin walaalaha quruxda badan, sidaas nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.